دكتور محمد عبد قبوسه oo warfidiyeenka kula hadlay cisbitaalkiisa Haldoor ayaa ka hadlay dhibaatada uu leeyahay xanuunka dunida ka sasiyay ee coronavirus. Fayraskaasi wuxuu ka samaysan yahay silsilad yar oo hidde-sida oo lagu dahaaray sida kiniinka capsule lagu dahaaray oo korkana ku wadata taagtaagyo yar oo mafaatiix سيري مركا بني آدم وحا وغير شراء بني آدم أركي اللسكوها يستم من نول يهي مسمن ولا سيبو عالم كإنتا ترى لأيك وفريسي وترد إله وحاني وحي أود ليه مفاتيح ذي كورك كواتان مفتاح والبوح وأقون سنكرا قفل نولك لأو هايستو هدو حولي هاي هدو ددي هاي هدو حكستيه marka quful muftaxaas sida hoteelada ay u dareemaan furaha ay u furaan muftaxa yar oo haysto oo midba garanayo noole gaar ah albaabadiisa kolkay istaabtaan hadduu yahay kii uu furayay intuu albaabkiisa garto oo uu furo ayuu gudaha u galaya unugii kale ee selka loo yaqaanay markuu gudaha galana awoodii ka maqnayd ee ilaahay ka maqnaysiiyey oo dhan wuxuu afduubaya oo burcadbadeed ku noqonaya unugii u afduubay warshadihiisii buu isticmaalayaa nooc kastoy tahay markaasaa seelku shaqadiisii kale ee isagu watay ee noloshiisa ahaa intuu joojiyo wuxuu u shaqaynayaa xabadan yar ee viruskaabuu u shaqaynaya wuu ku tarmaya marka capsule buu ku samaysanaya mafaatiix kale ku samaysanaya halkaas buu ku badanaya wuxuu dhaawacaya unugii coronavirusku waa wax ciidaa ka badan kan gaarka ah SARS baa loo yaqaan SARS cov maartay covid maxaan dhahaa 2 macnaheedu waxa weeye mid hore soo maray 2001kii oo qaaradda China iyo halkaa ka dhacay laakiin adduunka kuma baahin maantay SARS-kan COVID-2 waa kii labaad xoolaha lagu yaqaan waayo coronavirusku badidiis waa dure yar waa cuucuuc yar waa wax badan boqolkiiba 80 dhib ma keeno dhanka kale doctorku waxa uu si gaar ah ula hadlay madaxweynaha Somaliland madaxda Soomaaliya dhammaanteed gaar ahaan madaxweynaha Muuse Bixi waxaan u sheegayaa dib u xasuus نبي يوسف عليه السلام سوى كسو بحي حبسي وأني من نمن لو أقونسن وأن رسول نمن لو أقونسن أيام من دين مسلم هيسن كفائدة استرياء فصر تدرس سنة أو دقال اسكو ديارين مسيرة صوصعته أيو قال أنا كان إندهن ناكو أركينا ميدتك يوميلو آسل لواي إندهن ناكو أركينا قرابدي soo salaami kari la ama meedkii raaci kari la indhaheenan ku arkeena iyadoo xuduudii inta la ka xirtay saaxiib maanta madax dunida ku nool oo xataa kulantaa ma jiro madaxweynaha kale ka baqaya ama dadka kale soo qotay mariya bal meeshii maraysa qiyaas ugu dambeyntii Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waxa uu fariin u diray bulshada Somaliland waxaan leenahay magaalooyin waaweyn ma lihin ملايين اسكو تagtay iyo gaadiid iyo maartay caalam isku wada xiran oo kubada xiran filimo xiran hotel xiran wax walba isku wada dhow annaku waxaan leenahay hawo furan miibaan leenahay tuulooyin baan leenahay beeraan leenahay talada ugu horeysa ee aan ummadayda siinayahay waxa weeye wax kastoo dhiboona soo marayba waxaan uga badbaadi jirnay ku cayma jirnay miigan in magaalooyinka waaweyn laga baxo in magaalooyinka waaweyn ee dadku ku badan yahay laga baxo in loo baxo miiga in caruurta iyo waayeelka jilicsan oo xanuunkani waliba qofka uu ka jilicsan yahay buu kaga sii badan yahay laakiin ma daynayo dhalinyaro iyo qof kale in dadka lagu wacyigeliyo inay uga ka baxaan magaalooyinka waaweyn Batri Koosar Maxamuud telefishinka Sahan Hargeysa